بسم الله الرحمن الرحيم. labaatankii bishan afraad oo shalay subaxnimadii ahayd 2025 waxaa marxuumka magaciisa la yiraahdo Faarax Caydi Jaamac inuu ugaasa Maxamuud Jaamac waa 40 jir ah laga helay meydkiisa aagga Agoomaha oo magaalada Laascaanood abaara saacadu markaa ahayd 7:49 subaxnimo. meydka kadib markii la qaaday laamaha ammaanka ee booliiska iyo laamaha kale ee ammaanku waxay gacanta ku hayaan kiiskii baaris baana ka socota. insha allahna waxaanu leenahay muwaadinka reer SC ah in aanu sida ugu dhaqsiyaha badan u horkeeni doono cadaaladda ciddii geysatay falkaas. waxaana weli socotaa baarista kiiskan dhimashada ah oo ay gacanta ku hayaan ciidamada ammaanka laamihiisa kala duwan. waxaan rajaynaynaa ama aan u sheegaynaa shacabweynaha reer SC sida ugu dhaqsiyaha badan inaan gacanta soo gelin doono haddii la yiraahdo ciddii geysatay falkaas. sidoo kalena shacabka reer SC waxaan u sheegaynaa inay ka warsugaan laamooda amniga cid kasta oo ku kacda warar been abuur ah oo lagu marin habaaminaya kiiskana aanu la tiigsan doono sharciga.